waxa uu joogaa waxa la dhihi jiray Xasan Cali Suuraagi ana ka tirsan argagixisada shabaab oo ku dooday oo deegaanka Soomaaliyeed dadka ku arqaladay jiray qolada gaadiidka ninka la yiraahdo u qaabishanay iyo ninka la arqaladay oo ninka la yiraahdo shacbiga ninka la yiraahdo ama dawladda Soomaaliyeed dhacdo uguba oo farxad gelisay shacabka ku nool gobolada Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud ayaa ka dhacday deegaanada hoostaga xadka ay wadaagaan gobolka Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud kuwaas oo ku dhuumaalaysanayeen horjoogayaal ka tirsan kooxda argagixisada kadib markii laba wiil oo da'yar ah ay ka hor yimideen horjooga ka tirsan kooxda halkaasna ay ku qaarijiyeen horjooga Cabdilqaadir Yuusuf Maxamuud iyo Cabdinaasir Muxudiin Cali oo da'doodu ay ka yar tahay 20 sano tuuray qodha ay kaga jareen kana furteen qori nooca AK47 ah horjooga lagu magacaabi jiray Xasan Cali Suuraagi kana tirsan kooxdan argagixisada Xasan Cali Suuraagi ayaan sida aan xogta ku helayno kooxda u qaabilsanay arrimaha gaadiidka iyo qaadista wixii ugu yeeraan sakawaad oo ah lacag iyo xoolo ay si qasab ah uga qaadaan shacabka ku nool deegaanada ay maamusho kooxda argagixisada labadan wiil ayaa qaaday tallaabo geesinimo leh iyagoo shacabka Soomaaliyeed ka hor leexiyay mid kamid ah horjoogayaashii ugu dhibka badnaa Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud Cabdilqaadir Yuusuf Maxamuud ayaa la yiraahdaa oo ku dhashay degmada Ruunadgood kuna soo barbaaray marka ninka la yiraahdo in muddo ahaan ninka la raadinaynay ninkaas argagixisada oo muddo adiga bil iyo wax ka sii badana marka ninka Ilaahay shalay ayuuna kulmiyay hubkan ku raadinayna ninka la yiraahdo oo ku qabaynana wuxuu ahay ninka la yiraahdo hal miditoor riyaan haysan hal tooriyaan wadan ha tooriyaan ninka la yiraahdo ku weerar tagaynay shalay Ilaahayna kulmiyay hadawna kulmiyay ninka la yiraahdo asoo wato mutafaqon aan saragnay markaan aragnay ninka la yiraahdo waxa loo dhaalacsiyay wadada lagu sugay inuu ninka la yiraahdo aan wadadaas iyo qoragaas iyo ninka la yiraahdo naftaba intaasba inaan ninka la yiraahdo asaari ma ayaan ka sii shaqeyn aan raafina ninka la yiraahdo go'aankan yahay wuxuu ku dhacay ninka wadadan u istaagnay ninka la yiraahdo waa meesha uu ku soo hoyay jiray waxa loo digay dad shacab ah ninka nooba waxa iska saareen ana ninka la yiraahdo on hadda hub iyo ninka la kamidna lahayn inaan naqaad dhahno aan kuna iska ogaano wuxuu hub oo qarsoon oo wato ninka la yiraahdo jiqno aan la soo tagnay markaan la soo tagnay waa ninka gabagabadii ninka la yiraahdo noo istaajaan dhahna mootada ballan ku xwaynina inuu qoragada fooq qonina birta ku bilaabo sidaasan ninka la yiraahdo gacanta ayuu soo wareegtay ninka inaan aanu ku go'aankan wax waay ninka la yiraahdo inaan dhibka iyo amalkan wahay in adduunyo ka baxna amba aakhiro oo buud amba adduunyo ninka la yiraahdo aan ninka la yiraahdo wijiye wanaag aan ku joogo amba aakhira ka ninka la yiraahdo meesha meel taagnaa kara maahan intaas kadib dhalinyarada ayaa ka soo baxsaday deegaanka ay dhacdadu ka dhacday ugu dambeynsa waxay si nabad ah ku gaareen deegaanka Masagawa degmada Galcad ee gobolka Galgaduud halkaas ay ku soo dhaweeyeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada Sabasaba waxaan halkaas ku soo dhaweeyay gaashaanle Maxamuud Weliye taliyaha ururka 772 guutada Sabasaba dhamme Cabdinuur Qadaye taliyaha ururka 773 dhamme Liibaan Galcad abaandulaha ururka 773 iyo gudoomiyaha deegaanka Masagawa Ismaaciil Sheene ilaa muddo ninka la yiraahdo 20 daqiiqo meel loo lugayo kalun oo ninka la yiraahdo inta aad qofta lugaysta inta soo kala wanaagsan gaadiidka marka ninka la yiraahdo waxa uu xusaas bay ahayd waana ma haasana ku gabagabeeyna ninka la yiraahdo anan ka soo baxay deegaankan Masagawa adiga ninka la yiraahdo muddo aan u soo lugayeenay ninka la yiraahdo 10 saacabar ilaa saaka subaxdii ninka la yiraahdo marka salaada markaan imaanayna ninka intaasaan adigaas aan lu kula soo jirno ninka la yiraahdo ciidamada dawladda markayna hormaanayeen biladka Afgaankiis dhacdada ayaa ka dhacday degmada Ruunadgood ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ah degmo kala qaybisa Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud waxaana loo arkaa mid muujinaysa isbedel ku yimid xiriirka sii xumaanaya ee u dhaxeeya kooxdan argagixisada ay gobolkeedu dhacay iyo shacabka ku nool deegaanada ay ku dhuumaalaysanayaan argagixisada shacabka oo in muddo ah wajahayay cabsi baad cadaadis ayaa hadda bilaabay inay muujiyaan diidmo iyo ka fogaansho kooxdan manaxayaasha ah talaabadan ay qaadeen Cabdilqaadir Yuusuf Maxamuud iyo Cabdinaasir Muxudiin Cali waxa ay sidoo kale fariin u noqonaysaa dhalinyarada kale ee ku nool deegaanada ay weli ku sugan yihiin kooxdan gobolkeeda dhacay
gaar ahaan kuwa doonaya inay iskaga fogaadaan kooxda oo ay helaan wada nabadoon ay ugu soo biiri karaan bulshada iyo geesiyada qaranka. aad iyo aad waxaan ka codsanaynaa inay ninka la yiraahdo wixii ninka la yiraahdo anu ku qof iyo ka ahayn hiyo hoob ay ka rabnaa ninka la yiraahdo qofan ninka la yiraahdo ninka qof kale ninka maanta aanu garabka sugayna ma jirto wixii argagaxisada ninka la yiraahdo inaan anu kunaan saas ku kula si daba jir ninka la yiraahdo ninka ay ku soo baraarugaan saas baan rabnaa ninka la yiraahdo waxaan u direynaa ninka la yiraahdo nimankaas waa niman gobol ku racay ana ninka la yiraahdo awoodii ninka la yiraahdo ayuu ka tagtay ninka la yiraahdo waa qolof meel taagan ma aha ninka wax awooda oo maanta hayaan male ninka la yiraahdo waxay ila muuqataa qof walba ninka la yiraahdo inay ninka la yiraahdo qofkii dadka masaakiinta tabar iyo dawlad ku dhiman hadda ma hayaan iyo ku arag ninka la yiraahdo ku qalqal galayaan ninka la yiraahdo gacantoora laga wareego sidaan oo kale ninka la yiraahdo ku soo wada baxaan. Axmed Daljir, raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, bariga gobolka Galgaduud.